وطنا ويو ملبيك ودتني إيديغاي بدحي مكمارنتا مدحو مجها مكمارنتا مسكحيو أقول مكمارنتا aniga magacayga waxa la lahaa Xaaji Ibrahim Xasan Maxamed waxaan ku magac dheerahay Xaaji Qorshe waxaan kamid ahay aasaha hay'adda Marginalized Community Advocacy Network MCAN la dhaho oo ah hay'adda kaliya sida firfircoon aga qayb qaadato dadka Bond 5 ka wada jiro galka Bond 5 ka wada jiro iyo cidda kale ay u aragta inay dhibaataysan tahay la qaybsato xaaladda marka uu ku sugan yahay anagoo aanan u fiirinaynin beelaha waaweyn iyo beelaha yaryar laakiin focuskeena mar walba uu yahay cidda dhibaataysan yaan wehel iyo ehel u nahay taasa ma taqaanaa waxay hay'adeena ka dhigtay hay'adda ugu firfircoon wax laga dhageysta warbixinadeeda meel dheer gaara maanta wadanka hadii hay'ad u qaareynta dadka Bond 5 ama dadka ma taqaanaa awoodooda cod hooseeyo u hadasha waxna u qabata gudaha Soomaaliya yaa ka mid nahay runaantii waxaan rabaa in horta caalamka iyo bulshada iyo cid walba oo clipkan daawanaysa la wadaago Soomaaliya maanta cid tirisay oo cid ka badan ma laha laakiin dhanka xuquuqaadka iyo dhanka ma taqaanaa la jeclaysiga yaana laga batay mooyee tira ahaan dadka anaga u doorno dadka maanta ugu badan Soomaaliya qayb ka yihiin laakiin markii ma taqaanaa saaxadda wax qabadka wadanka la dhaho iyo ka maqan yihiin run ahaantiina waa dadka maanta ugu daran tacdiyada wadanka ka dhacaya qaybta ugu badan ay ku dhacaan iyadoo ma taqaanaa loo koos gareynayo policy-ga wadanka oo aysan qayb ka ahayn gargaarkii oo aysan qayb ka ahayn garsoorkii aysan qayb ka ahayn taasaa marka waxay koos gareysaa in wax walbo dulman ay u ahaadaan annagana arrinta hadda aan qabanno ma aha takrifalkaas in ma taqaanaa aan reaction ka sameyna laakiin documentation aan ka sameynaa waan qornaa bulshada caalamka la wadaagnaa si loo yareeyo tacdiyada dadka ka dhanka ah run ahaantii tacdiyada ugu badan oo ka dhaca hadda magaalada Muqdisho oo kale markii la sameynayo kale baaritaan dhanka amniga ah xala aada badanaa meelaha barakacayaasha ay degan yihiin oo dadka ugu badan Bond 5 ama dadka ma taqaanaa iska dhaqaale ahaan hooseeya ay degan yihiin dad baa soo qabtaan la xiraa cid u dooda ama cid ka daw imaata malaha tacdiyadana soo gaartaa waa qayb ka ah markaad aragto meelaha ma taqaanaa dib u xoreynta ay ka socoto kale ciidanka la geeyo dadka meesha jooga dhibaatooyin u geystaan oo ah kufsi waxa kaloo dhaco gabadh kale oo hanti boob ah waxaasoo dhanna ma aha waxyaabo ma taqaanaa cid isweydiisa marka waxyaabahaasoo kale waxyaabana soo gaara way ka mid tahay qaarna wax baan ka qabanaa oo qabadkeena wuxuu ku salaysan yahay in ma taqaanaa dadka marka ay qoseyso inaan la hadalno wixii kalena inaan document gareyno oo berri markii ma taqaanaa wadanka cadaalad uu helo inaan banaanka soo dhigno dhacno gobofalladana dhacay waa qabad wayna mudan yihiin waxyaabaha oon ka shaqeynay waxaa ka mid ah hard to reach areas meelaha la dhahay aan ka shaqeynaa dokumentiyo badan oo ku salaysan gobofallada la geystay oo kufsigan haynaa inkastoo laakiin badanaa confidentiality-ga shakhsiga ama deegaanka ay tahay muhiimad in ma taqaanaa annagana aan ilaalino annaga howlaheena markii ay ku salaysan yihiin kufsiyada oo kale budget nagu filan aanan haynin waxaan u gudbinaa hay-adaha kale ee markaa wax siin kara ama qaban kara dadka ayaga oo bahwadaag aan nahay oo nala shaqeeyaan tacdiyada wadanka inta ugu badanna waxay ka dhacaan lower shabeellada dhexe jubbooyinka dhinaca baay badanaa meelaha ma taqaanaa dadka barakacayaasha ah ama dagaalada ay ka socdaan ama ma taqaanaa ama arqalada ay ka socdaan maleeshiyad ay joogaan
meelahaas ay ugu badan yihiin gobodfalada meelaha ay ka dhacaan hataa meelaha AS ay joogto qayb ay ka yihiin meelaha dhibaatada ay ka dhacaan marka hawshu way iska ballaaran tahay tacdiyadaas meelaha ka dhacana inta badan wuxuu ku dhacaa bulshada hadda aan idin sheegay oo aanan u diyaarsaneen difaac oo aanan u diyaarsaneen dhan dhaqaalo oo aanan u diyaarsaneen in mataqaanaa ay falcelin sameeyaan mar waddanka xukuumaddii farmaajo markay joogtay weliba wasiiradii deeqa ay joogtay hadalhayntiisa iyo ka hadalkiisa aad u badnaa laakiin wixii xitaa kasoo dambeeyey gabadha wasiiradda sidii loo bedelay oo biilkii mataqaanaa woman rights-ka approvalkiisa iyo waxaa markaas ku qabsaday ka hadalkiisa hadda aad buu u hooseeya doonarkan wax lacaga kuma dhiibaan maanta arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga laakiin bulshada Soomaaliyeed kuwa maanta arbanka ku nool oo Muqdisho ay ka mid tahay waa u diyaarsan yihiin inta badanna mala arko laakiin marka Muqdisho ka baxdo afgeeda aad tagto iyo barakacyaasha marka tagto waa common wax jiro waayo oo ilaa hadda dadka isticmaalaan waxaana qoos garay badan wax wacyigelin ma jiro wacyigelin la'aantaas waxay sababaysaa dadka in mataqaanaa gudniinkii waa la suneeyaa iyo lama suneeyo iyo toos baa loo gudaa iyo waxaas baa hadda mataqaanaa socoto laakiin dadka sidii caadiga ah ay u sameeyaan u kumid kareeyaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga meelaha uu ku badan yahay waxaa ka mid ah meelaha ka baxsan magaalada Muqdisho arrinta guurka qasabka ah baaxadeeda aad bay u ballaaran tahay qasabkana hadda inta badan waa la xeeladeeyaa sababta loo xeeladeeyo waxay tahay dad ama qurbaha ka imaaday ama lacag haysta baa imaanaya dadkii masaakiinta ahaa ama waxba haysan baa loo imaanaya markaasaa mataqaanaa gabar heblo ama gabar heblo ayaan ku baahannahay baa la dhahaa taasaa mataqaanaa waxay sababaysaa in qofkiigan la tashan qofki loo guuriya gabadha 13 jira ah kuwa 10 jira ah oo la guursadana magaalada ku aragnaa oo la leeyahay aabahooda bixiyay ama reerkooda bixiyay badana laakiin waxay u badan yihiin dadka ka imaada magaalada meelaha ka fog ay u badan yihiin inkastoo magaalada percentage ahaan markii loo qiimeeyo 10% 15% guur qasabka uu ka jiro laakiin meelaha 50% 60% uu ka jiro waxa ka mid ah gobolada oo wacyigelin la'aanta mataqaanaa inta badan keenaysa dadkana ma u diyaarsana in hadda wacyigelinta ay waxa lagu dhaqdo waddanka wuxuu ku jiraa gargaar degdeg ah iyo in cunooyin iyo waxa laga fikiro marka ma u diyaarsana dadkii in mataqaanaa wacyigelin loo dhaqaaqo oo gudniin fircooni iyo aali marriage ku salaysan inta aan ku jirnay hawlahan samafalka ah waqti ahaan horta waxay dhacdaa 2006 ilaa hadda waan ku guda jirnaa oo muddo fog 17 sano 16 sano meelaha waa laga joogaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo la soo maray waxaa ka mid ah waxyaabaha aanan inta badan bulshada Soomaaliyeedna aysan indhahooda arkaynin caalamkan indhahooda uusan arkaynin laakiin qofka goobjooga indhahooda u arkaayo waxyaabaha noogu yaabka badnaa ayaa waxaa ka mid ahaa xaalad aan la kulannay oo ahayd qof shakhsi ah oo shakhsiyaadka anaga wax qaban ka mid ah oo inta la dhibaateeyey dadkii dhibaateeyey haddana loo qasbay in ay guursadaan loo qasbay in hanti ahaan wixii markaa reerkooda ay lahaayeen saaq u qaataan arrintaana door bidasho loo sameeyey in iyagana isku badbaadiyaan qofka la dhibaateeyeyna lagu badbaadiyo arrimahaas oo kale yaa waxyaabaha aadka iyo aadka loogu yaabeeyey ama aan la kulannay ka mid ahaa oo dadkii dhibaatada qabay ka xumaana haddana aanan u lahayn awood in ay soo ribood gareeyaan dhibaatada markaa haysato awgeed oo ilaa hadda ay ku dulnool yihiin waxyaabahaas oo kale yaa waxyaabaha annaga aan la yaabnay ama aan la amakaadnay ay ka mid ahayd dadkii ayaga ahaa oo markaa dhibaatada la kulmay markii ay dhacdana in arrimaha ay miiska soo saaraan dhibaatooyin kale loo geysan karana aan u sameynay relocation taasaa mataqaanaa waxyaabaha aadka aadka noogu yaabay ka mid ahayd intii aan ku jirnay howlahan samafalka waxyaabo kale oo ka yaab badanna mataqaanaa way jireen oo ay wacyigelin la'aanta ka mid tahay oo ay ka mid tahay 8,000 oo qoys aan ugu tagnay deegaanada Soomaaliya ka mid ah oo aanan lahayn iskuul oo aanan lahayn caafimaad kana tirsan Soomaaliya waxyaabaha noogu yaab badnaa oo aragnay ka mid ahayd
oo ilaa haddana aanan indhaha gargaarka faraha badan iyo waxqabadka faraha badan oo dowladda ay ka hadasho iyo hay'adaha qaar ay ka hadlaan aysan weliba meelahaas ay u badan yihiin weliba dadka hadda aan u hadlayno oo ah dadka mataqaana 45ka meel ay degan yihiin idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa